cabdiweli maxamed xasan waa wiil yar oo da'diisu tahay 16 jir balse aan haysan hooyo walaalo iyo ehel kale toona marka laga reebo aabihii oo dhimashadiisa xaqiijiyay xilligan cabdiweli waxa uu dhexda u xidhay baadi goob dheer oo uu ku baadi goobayo qaybta kale ee ehelkiisa cabdiweli waxa uu ku soo koray kuna soo barbaaray magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag halkaas oo aabihii keenay isagoo da'diisu xilligaasi jirtay 2 ilaa 3 sano balse cabdiweli hooyadii oo xilligaasi aabihii kaga soo qaatay xamar oo uu noo sheegay inaanu haatan garanaynin magaca hooyadii qabiilka ay tahay eheladeeda iyo halka ay ku sugan tahay toona isagoo cabdiweli arrimahaasi ka hadlaya waxa uu ku bilaabay magacay waxa weeye cabdiweli maxamed xasan maxay hooyo waxa ugu dhacay aabahay anigoo yar ayuu wuxuu keenay wadanka Boosaaso siiba aniguna aqal ma lahayn meelaha 2 sano ama 3 sano waa jiray aan wuxuu keenay Dhahar wuxuu ahaan jiray wadaadada wareego dadka quraanka ku akhriya markiiba wuxuu gursaday islaanti koorti gursaday ani islaanti may korin wuxuu ii keenay islaan oo joogta Dhahar islaanti ayaa soo korisay la joogay odagii maxaa la dhahaa Safiya Faarax maxay abartaas soo korisay ilaa kharasiye maxay intaas soo leekisay odagii islaam buu gursaday islaanti waa odag waa dhintay islaanti anigu odagii xabad ba ku dhacday isagoo wuxuu joogaa magaalo tuulo la dhaho yaka waxa ku taala Karkaar oo meel iska fadhiya maxay niman xabas la oriyay u yimaaday markaas uu iska cid u kacay ay xabada ku dhacday wada ku dhacday halkii baa la qaaday waa dhintay islaantaas oo anu intaas maqlay wax xog amahayn wax wara amahayn maxamed xasan maxamed waxa uu dhaafiyay ma garanayn waa weynaaday waa koray waxa maqlay islaam buu qabay markaasaan baaditoon soo tagay islaantii waan ugu yimid Ceergaawo islaantii ba markaa waxa ii sheegtay inuu ahaa qabiilkiisu waxa weeye Ashraaf وحنا كي حسني مقع شريف وحوي محمد حسن شريف محمد حسن شريف حسن شريف حسين شريف عبد الله شريف سالم شريف محمد cabdiweli maxamed xasan waxa uu xogta ugu badan ee ku saabsan aabihii uu ka helay aayadii oo ku nool magaalada Ceergaabo balse iyada lafteedu aan xog sidaasi u badnayn ka hayn marka laga reebo magaciisa qabiilkiisa iyo dhowr kamida caruurtiisa oo xilligaasi xiriir la sameeyay kuwaasi oo 2 kamida ku nool yihiin dalka Canada waxa intaasi dheer ee uu cabdiweli helay ayaa waxa kamida sawir aabihii oo haatan u ah wehelka kaliya ee uu haysto inuu wiilal lahaa maxay inuu asagu madi haayo gabar kaliya loo walaalahayd maxay ini uu wiilashiisuna jiraan Toronto midna uu jiro Canada oo la dhaho Hanad Maxamed Shariif iyo Cabdisaaq kuwa ma isku dayday inaad la xidhiidho waa isku daynay 10 goor baan isku daynay lambaradoodu ma badhacayaanba marka lambarada islaanta horu haysay islaanta lambarada uu qoray buug badan ugu qornaayay adeerna waan haynaa laakiin waa lambaro hore oo la isticmaali jiray malaha waa lambaro hore laga guuray marka iminka qaabkeebaad doonaysaa bal in lagu loo baadi doono walaalaha waxa tiri qaar Toronto joogan qaar meel kale joogan xogta aad haysaana waa inta hooyada ma garanaysaa meel ay ku wardambeysay hooyadii sida ila sheegay waxa la yiri hooyada adigoo yar waxba wuxuu kaaga soo qaatay Muqdisho hooyadii magaceeda baan tiriye ma garanayo waxba tahay ilaahay wixii ii soo hela ilaahay khayr ha siiyo ilaahay baan baryayaa in la helo ma sha Allah ilaahay baan baryayaa in la helo garamayo wallahi sawirka aabahay waxaan ka hayaa sawirkan aabahay maxay iyo waxaan ka helay aayadii baan isisay maxay sawirka waxa laga yaabaa inuu galay 2003 maxay wuxuu ku galay Boosaaso waxaad ii sheegtaa da'daadu iminka haatan intee jirtaa da'deedu waa 16 jir way hadii ayba ku soo baadi doonaan oo ay ku arkaan ama ku gartaan ama aabahood markay maqlaan ku gartaan xagee kala soo xiriiri karaan
waxay la soo xiriin karaan number hooyadii magaceedu waxa la Madiina Cabdi Faarax waa gabadha haatan gacanta ku haysa Cabdiweli Maxamed Xasan waxayna dhankeeda faahfaahin ka bixisay xogta ay heshay muddadii uu Cabdiweli baadi goobka ugu jiray eheladiisa. Madiina Cabdi Faarax waxaan joogaa magaalada Ceergaabo waxaan gacanta ku hayaa Cabdiweli Maxamed Shariif Xasan Cabdiweli waa inay yar oo dhibana ah oo maxaan ku iraahdaa qof walba oo dareen ku jiro islaamnimo ama qiiro ay ku jirto oo ubad ka dareemaya oo dareemka dhibta ku sugan yahay waa inay yar oo isagoo yar aabihii uu dhintay hooyadiina oo aabihii uu ka soo qaaday wuxuu ka soo qaaday hooyadii warka saan ku helay anigu Cabdiweli hore uma noqonin muddo imika 2 bilood ah ayaan xogtiisa iyo warkiisa aan gacan ururinayay uuna ila noolaa aniga sidaan ku noolaa ku ogaadina waxay ahayd si yar inay yaraan dhalay bay saaxiib ahaayeen isleegihiin markuu magaalada yimi Ceergaabana muddo 4 bilood ah ayuu ku sugan yahay hooyo la'aan buu ku weynaaday iyo aab la'aan ilaahay islaamkiisii ayuu uga dhigay waalid oo soo koriyay maanta halkan buu joogaa aabihii wuxuu ku dhashay Oromiya ka tirsan tuuro ka tirsan oo ay isku hayaan Soomaalida iyo Oromadu oo leh balbaleeti buu ka soo jeeday wuxuuna ku barbaaray Muqdisho wuxuuna ku lahaa xaafadda Soos buu guri ku lahaa oo uu deganaa intii ka dambeysay adigu ilaa 2001 xogta saan ku helay ayuu joogay Boosaaso kulana intaan xogta hayno 2005 waa la dilay Cabdiweli anigu gacanta ku hayo minka halkii hooyadiis baan joogaa waxaan ka been umada ka codsanay wixii garanaya aabihii oo aqoon u leh laakiin maadaama qoladiisii inuu ashraaf oo casaani ka sii ahaa baan xogta ku helay walaalihii Hanad Maxamed Shariif Xasan oo jooga Norway iyo Cabdirasaaq Maxamed Shariif oo jooga Toronto labada wiil baan maqlay dad kale faro badan oo gabadh Jamiilo la yiraahdo Jamiilo bayna jirta oo ku qoran aanu haynayna qoraalkeedii hablo faro badan oo meel ku qoran laakiin muhiimaddu waxa weeye cidii aragtaba inay Cabdiweli sii gudbiso waxaan ku iraahdaa qof oo la soo xiriiro waxa weeye 063 428 5532 lambarka baa laga helay Cabdiweli ilaa goormaad adigu rajaynaysaa inaad gacanta ku sii hayso maadaama aanu ehel kale iyo cid kale anigu Cabdiweli maadaama ehel kale lahayn oo anigu imka aan gacanta ku hayo waxaan rajaynayaa inta waqti ka imanayo ama dadkiisa laga helayo inaan gacanta ku hayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.